cabasho hore awal ka timid baa jirta oo aanu xalinay intaan dadka dhageysanay waxaan ka tirsanaa golihii dhaqanka ee ku meel gaadhka ahaa ee gobolkan marka jiri jiray oo hoggaamin jiray wakhtigaa suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowal waxaan ka tirsanaa 17 xubnood ee saxeexay waraaqda saamiga gobolku ka cabanayo waxaan xalay daawaday dood loo qabtay madaxweynayaasha mustaqbalka 3 xubnood ee tartamaysa waxa ka mid ahaa nin xisbiga kulmiye aan ugu jeclaay oo musharaxa koowaad ee madaxweynaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxaan la yaabay kelmad xalay uu ka jawaabayay waxa uu yidhi su'aal la weydiiyey ahayd sidee dalkan u hoggaami doontaan oo dhisaysaan wuxuu yidhi oo lagaga hadlaya tabashada labada daraf ka jawaabay ninkii ka horreeyey wuxuu kaga jawaabay arrintaa waan wadnaa gaar ahaan awdal tabashay keeneen waan dhammaynay waana saamigoodii waan bixinnay la mida markaa haddaan ka mid ahaa 17 xubnood ee waraaqdaa saxeexay meel walba maanta taalla ma maqlin dhammayntaas la dhammeeyey haddaba hadduu yahay ninka u sharaxan xisbiga kulmiye mas-uulkii u sarreeyey kan maanta sidan leh waa mid la yaabo oon aad ula yaabo haddaa wadaan shacabka reer awdal dib ha u eegaan yutuubyada ha galaan tiifiga ha galaan kollay barnaamijaan baa loogu soo celini haddii la dhammeeyey malaha dee anaa dalka ka maqnaaye in ummadda ha la qanciyo ha loo sheego shacabkuna ma ay maqal weli anna maan maqal waa mid la yaab leh haddii haddaba sidaa tahay dadweynaha reer awdal baan u sheegayaa hadduu musharaxii maanta soo socdaa kaaya waxaan xasuustay habeenuun halkan ku hadlaynay oo madaxweynuhu ag fadhiyey Muuse Biixi Cabdi waxa uu yidhi haddii iminka saamihu idiin saxeexo shaqayn mayso ilaa dhinacyadu isku yimaadaan ma saxeexi karo siiraanya tii baan xasuustay annagoo hoolka rays fadhina uu yidhi waannu ishor joognay isna ma dafiri karo waana la wada joogay taa waxaanu arkayey sharci inuu cuskanayo waxaase la yaabay mas-uulka u badheedhay isagoon weli hadalkii gaadhin beenta intaa leeg